sidaad ku garan kartaa gurigaada inuu sixir ku dhex jiro, seesa uga takhallusi kartaa sixirkaas haddii ficil ahaanba u yaallaba sixir meesha ama guriga dhexdiisa. calaamadahan waxaa lagu garan karaa in gurigaada uu sixran yahay oo balaayadaasi xumaan falayaal ay kula damceen. laakiin sidee uga takhallusi kartaa? in badan oo ka mid a qoysasku waxay rumaysan yihiin qoyskooda in la sixray oo guriga dhexdiisa oo sixir ka jiro, laakiin si run oo xaqiiqo ah siday ku noqon kartaa aragtida noocaasa ama dareenka noocaasa qoysas badan ay dareensan yihiin? waa kaliibka kan waxaa idinkugu soo gudbinayna walaalayaal calaamaadka tusaya gurigaada inuu sixir ku dhex jiro. waxaa ka mid ah calaamadahaas dadka guriga degan inay dareemaan ciriiri xagga neefsiga ah ama hawada ah. waxaa kaloo ka mid ah in guriga dhexdiisa ay ka jirto mashaakil iyo iskhilaaf aada u badan oo ka dhexeeya qoyska meesha ku dhex nool dadka ka kooban yahay. khilaaf macnaha si dabiiciya aan ahayn. tusaale oo kale inuu ilmuhu caayo hooyadiis ama aabbihiisu caayo ama walaalihiisu garaaco iyo waxa la midka ah. waxaa kaloo ka mid a in la dareemo shay dhaqdhaqaaqaya oo guriga ku dhex jira ama shay hal mar si deg dega u goynaya waf oo kale. waxaad arkaysaa si maaragtay ilbiriqsi ah ayaa guriga dhexdiisa lagu arkayaa soo gelitaanka ama bixitaanka. waxaa ka mid a calaamadahaas marka qofku uu hurdo inuu arko arrimo argagax leh oo uu la yaabo hurdada dhexdeeda sida ay qaylinayso oo ciyaysa iyo wixii la midka ah. waxaa kaloo ka mid ah qofku inuu dareemo madax wareer aad saa'id u ah iyo goonja waxa loo yaqaan uusan doonayn inuu maqlo qur-aanka oo qur-aanku ka cabsanayo, kadaalika oohin ama qaylo inuu dareemayo. sidoo kale waxaa ka mid ah inuu qofku arko guriga dhexdiisa qof uusa aqoon oo ku dhex dhudhuumanaya. tusaale oo kale inuu iskugu matelo xataa mararka qaarkood ninkeedii haweenayda ama maaragtay ninka xaaskiisa ugu matelo ama mid ka mid a ilmaha suurad ahaan inuu isku matelo. tusaale kale ilma dugsigii jira ama waxbarashadii iskoolka jira ama maqan ayaad arkaysa guri dhexdiisa adoo joogo inuu kuu sawirmayo oo guri dhexdiisa aad moodid inuu joogo waana maqan yahay xaqiiqa ahaan. waa calaamado ka mid ah kuwa lagu garto inuu guriga sixir dhex yaallo. calaamadahaasi waa kuwa ugu muhiimsan ee gurigan inuu sixiran yahay ama sixir dhexdiisa ku jiro lagu dareemi karo. meeshuu sixirkan kaga jira ama la gelin karo maxay noqon kartaa? see ku garan karaa meesha sixirku ku jiro? waxaad ka raadinaysaa meelaha talaagadu ku jirto, meelaha daaqadaha guriga albaabkiisa, laabatooyinkiisa, meelaha maaragtay sariirta hoosteeda ah ama maaragtay armaajada hoosteeda iyo sijaayadaha ama salliga hoostiisa ama hadduu guriga yaallo shamac iyo wixii la midkaa, guriga meesha laga soo gelayo ama guriga hadduu meel luuqa ku yaallo oo kale luuqiisa oo kale iyo wixii la midkaa, ama meel xirxiran haddaa aragtay furfur oo fiiri. waa meelaha laga fiiriyo ama laga eego haddii sixir guriga lagugu aasay. marka meelaha isticmaalkoodu ama aragtidoodu ay yartahay in la arko ka fiiri, sida sariirta hoosteeda, armaajada hoosteeda iyo meelaha laabatooyinka daaqada banaanka gudaheeda iyo meesha maaragtay kasta oo noqon karta meel wax la gelin karaa wax lagu aasi karo oo dadka aragtidooda ku yar. meelahaasoo dhan ka raadi. adugu meel wax qarinaysa ayaa lagu qariyaa. haddaad heshid oo wax lagu xirxiray, ilaa saaxirka waxyaala badan buu isku xirxirayaa ومن شر النفاثات في العقد sida ilaahay uu yiriba. haddaad heshid waxyaala noocaas oo isku xirxiran masaajidka kuugu dhow ama markaska kuugu dhow ayaad geynaysaa. ama adiga laftirkaadaba fur. markaad furaysidna suuratu qul huwalle iyo qul acuudu birabbil falaq iyo qul acuudu birabbinaas afka ku hay akhrintooda iyo ducooyinka intaad karaysid. waa marka aad furfuraysid kadibna isticmaal ruqyada. tusaale oo kale suuratulfaatixa ayaad waxaa akhrisaa 7 jeer. 5 aayadood suuratulbaqara ugu horeeya sidoo kale aayatulkursi sidoo kale 7 jeer. 2 aayadood ugu dambeeya suuratulbaqara ayagana 7 jeer. kadaalika waxaa akhrisaa haddaad awoodid fawaqaca alxaqu wabatla ma kaanuu yacmaluun fagulibuu hunaalika wanqalabuu saagiriin وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. 7 jeer akhri. waa aayada ka mid ah suuratu al-Acraaf. haddaad adigu awoodinna daar oo cajalad ka shid. waxaa kaloo la doonaya inaad akhrinta ku soo celcelisid 7 jeer 3 suurada qur-aanka ugu dambeeya sidaa tilmaanayba: suuratu naas, suuratu alfalaq, suuratu al-ikhlaas, kuna dar suuratu al-kaafiruun. 7 jeer dhammaantood. intaa markaa samaysid khalaas waa dhammaatay. waswaaska shaydaanna xagga iska dhig. saaxir iyo xumaantiis waa jabeen wixii ay kula damciyeen. kadibna toosnaanta laazim insha allahu tacaala. kuwaasi waa calaamadaha lagu garan karo gurigaadu inuu sixran yahay. meesha sixirkaa laga geliyena waa tilmaanay. sida aad uga takhallusaysidna waa tilmaanay. aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina. waa idin salaamaynaa. jasaakum allahu khayran.